Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Marka hore, Ramadaan wacan. Ka bacdi, sida aan la wada soconay waxaan ku dhex jirnaa 10kii habeen ee bisha Ramadaan ugu dambeeyay. 10kaas habeen oo uu ku jiro habeenka Laylatul Qadriga. Markaa, waxaa su'aal u baahan inaan isweydiino maxay habeenkaasi habeenada kale uu kaga duwan yahay. Laylatul Qadriga waa habeen fadligiisa aad iyo aad ugu badan yahay. Waxaana ka mid ah kow waa habeen camalka la qabtaa uu ka khayr badan yahay midka la qabto 10 bilood, yacni 83 sannadood iyo 4 bilood. 2 waa habeenkii Quraanka lawxul maxfuudka laga soo dejiyey iyadoo la keenay meel la yidhaahdo gurigii cisiga iyo sharafta, dabadeedna qayb nebiga sallallahu calayhi wasallam loogu soo dejiyey muddo 23 sannadood gudahood ah. 3 waa habeenka lawxul maxfuudka laga soo dejiyo oo laga soo qaado sanadka waxyaabaha dhacaya sida wixii dhimanaya, wixii dhalanaya, risqiga iyo wixii la mid ah, iyadoo loo keenayo oo loo dhiibayo malaa'igta u xilsaaran arrintaasi. 4 waa habeen malaa'igta la soo dejiyo iyadoo uu ka mid yahay malakul Jibriil. Habeenka Ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa karaameeyey kitaabkiisana ku xusay, waxaana qof kasta oo muslim ah u habboon inuu ku dadaalo sidii uu u heli lahaa habeenkaas qaaliga ah. Habeenkaasi waa habeen uu Ilaahay ummaddan u gaar yeelay, qofkii helana khayr dhammaantiis ayuu helay. Rasuulkeenna sallallahu calayhi wasallam isagoo fadliga habeenkaas ka hadlaya waxa uu yidhi, qofkii Laylatul Qadriga kaca, yacni habeenkaa cibaado sameeya isagoo aaminsan ajar iyo xasanaad Ilaahay ka dalbanaya, waxaa loo dhaafayaa dembigiisii hore. Habeenkaas maadaama uu yahay mid fadli weyn leh, ahna mid aad iyo aad qofka muslimka ah ugu muhiim ah, ayaa asxaabtu waxay jeclaysteen inay ogaadaan habeenka uu yahay. Qaar iyaga ka mid ahi waxayba ku riyoodeen inay ku jirto 10ka ugu dambeeya soonka. Markaa nebiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu yidhi, ku dadaala Laylatul Qadriga habeenada tiradaas dheer, yacni kinsiga ah, sida 21, 23, 25, 27 iyo 29, kuwaasi oo ku jira 10ka ugu dambeeya ee Ramadaan. Markii uu rasuulku sallallahu calayhi wasallam sidaas yidhi, ayaa waxaa la ogaaday inay ku jirto 10ka ugu dambeeya soonka, gaar ahaan habeenada kinsiga ah. Laakiin axaadiista badankood waxayba sii cayimeen oo ay sheegeen inay tahay habeenka 27aad iyo kuwa kaleba. Waxaa habboon in dadaal dheeraad ah la siiyo oo si fiican loogu dadaalo, iyadoo cibaado loogu soo jeedayo. Wassalaamu calaykum